hargeysa markaa sheekadu ka dhacday waxa weeye inaan hargeysa ku nool hargeysay degan tahay dabadeetana waxay dhigataa jaamacad kamid ah jaamacadaha magaalada hargeysa waa inan aada u wanaagsan dabeecad fiican dhaqankeedu aanu ahayn hablaha seegseega badan ee iska socodka badan leh waa inan gurigooda joogta jaamacadda waxa u qaada gaaribaa u qaada gaari noohaabay subaxii ayaa soo mara casarkii dadna jaamacadda u geeya inan inamada jaamacadda la dhigtay ee gaariga la raacaa mid ka mid ah bay isbarteen kadib xiriir baa dhex maray xiriirkii markii uu dhex maray inankii iyo inantii xiriir aanaba caadi ahayn oo aada u fiican baa dhex maray dabadeetana kalsooni bay isku qaadeen markay wada sheegsanayeen muddo ilaa sanada inankana wax wanaagsan mooyaane inantu wax xun aanay ka arag ayaa waxa dhacday oo iska dhalinyara layahay oo la soo raacay dabadeetana wax aanay inanka hore uga baran baa dhacay dabeetana markuu dhacay ayaa inantii ay ogaatay in hawshu dhacday oo wax qaldan yihiin markaa inankiiba u sheegtay markaa inankii waxay ku tiri habeenkii aynu kulannay qaladkaasaa dhacay waxaana jira in hawsheenii uu ka dhashay uu uur ka dhashay markaa uur baan ku leeyay inankii wuxuu ku yihi waa sax weeyaan aan kugu qaadanayaa hawshaadana waan dhamaynayaa dabadeetana xilliguu u qabto wuxuu ku yihi waan hawsha waan gelaya haye inantii way iska sugtay sidii u sugaysay kolba ay uga warhelaysay kulaha sug ayaa ay gaadhay in inanta ay calaamadii kasoo ifbaxdo oo la arko kadib maalmaha ka mid a markay ilaa 4 bilood 5 bilood meelaha aynantii uurkiisitay ayuu inanka u yeedhay kadib dabadeetna wuu hanjabay wuxuu ku yihi haddii aad soo sheegato waan ku dilaya dabadeetana inantii wax laala waxay samaysay garan weyday reerkoodii way ogaadeen aabaheed wuxuu ku yidhi anigu kuma dhalin baxay sheegan wuu eriyey marka gurigii uu ka eriyey inamadoodii lamid reerkoodii oo dhan way wada eriyeen inankina wuu iska tegey inanku markaa reer garow ahaa garow iska qabtay dabadeetana inantii waxay meeraysata waxay go-aan ku gaadhay inay garowe kaga daba tagto garowe kaga daba tagtay kadib garowe markay tagtay xaafadooda oo meel ugu tilmaamay bay dadka weydiisay markay gurigii tagtay ee loo sheegay inaan ay sugayso inantiina loo sheegay magaceeda wuxuu ku yidhi wax kale is daayay eriya yaana ii soo gelin markaa sidii baa lagu soo eriyey iyadoo isla hadlayso iska dawaqsan ayay dabadeetana suuqa garowe ku dhex dhacday ay ku sooxday marka nin ka mid a dadkii kusoo ururay baa soo qaaday gurigiisuu geeyey kadib markay soo mirowday buu wareystay marka xaalkeedii bay uga warrantay way u sheegtay kadib wuxuu sameeyey wuxuu ka soo bixiyey nooliguu kasoo bixiyey wuxuu waxaan kuu qaban karaa inaan nooliga kaa bixiyo magaaladaada iskaga noqo haddii ay sidaas dhacday dee waxa weeyaan markaa way iska timi dadna hargeysa iskaga soo noqotay markaa laba mid bay u noqotay inay ilmihii yaraa meel kaga dhaqaaqdo oo ay tuurto ay disho iyo in isagoo calooshaba ku jira ay disho iyo in waxay doontaa kala kulmaan ilmaheeda iska korsato iska haysato kadib reerkoodina way eriyeen dadkii oo dhan way eriyeen inan iyaga la joogi jirtay markii hore markii la guursaday laakiin ka wareegtay oo iyadana aada asxaabu ahaayeen gurigoodana ku noolayd ayaa inantii markaa u yeedhay oo ku tiri gurigeyga iska joog gurigeyga ka shaqee jaariyadda lacagtii aan siin lahaana adigaan ku siinaya ilana degna wuu bartan iska joog bartii bay markaa iska deganayd ilmihii yaraa bay umushay markii ilmihii yaraa xoogaa ilaa 6 bilood 7 bilood gaadhay ayaa dabadeetna waxay go-aan ku gaadhay inaanay lasii joogi karin isaga tagto maadaama iyada laftirkeeda ay qoys noqotay lacag yaroo xoogaa intii ay shaqaynaysay ay urursatayna waxay kaaryoonay saaratay alaab yaroo lagu iibiyo markaa muus bay saaratay iyo khudaar yar bay kaaryoona saaratay ilmaheedii yaraana way xajeerkay u soo jiidatay oo soo qaadatay dabadeetana suuqa hargeysay deetana ay shaqo ka bilowday guri bay karaysatay gurigaa habeenkiina way hurda tagtaa maalintiina iyadoo ilmaheeda seeta bay bartaa kala soo baxdaa nolosheeda ilmihii yaraa wuu koray maasha allah ilaahay baa la qabtay inantii imika magaalada hargeysa ku nooshahay
way shaqaysataa oo ilaahay baa u ballaariyey intii yaraydoo meherad weyn bay leedahay ilmihii yaraana imika u soconaya oo waa qof weyn weeyaan marka sheeko noocaasaba ayay maansadu markaa ku saabsan tahay marka maansadu waxay ka warramaysaa inantiiyo hadlayso oo toos sheekadeedii kuma wada warramaysa laakiin inantiiyo hadlayso oo calaacalayso wixii soo maray iyo waxay filanaysay iyo waxay jeclayd iyo waxay ku hamiyi jirtay bay maansadu sheegaysa marka maansadu waxay ku bilaabmaysaa ragow aarsiga haween haddaad ka helaysayid inkaar baa laga dhaxlaa ilmada hooyada qofto iilkaasna lagu dhibaa ruuxii ibtilada fale aafada maad joojisaan ugey boqran baan ahaa islaam sharaf laan ahaa itaal buuxaan lahaa ilays baxayaan ahaa if iyo qurux baan lahaa walaal inamaan lahaa inaabti dhabaan ahaa xigtiyo ehel baan lahaa asxaab bilan baan lahaa ujeeddo cad baan lahaa intaad isa saarta meel aqoonta baraan lahaa inaan heer gaadho oo filkay ag tagaan jeclaa inaan ehelkayga iyo dadkay anfacaan jeclaa adduunyada ruuxu jecla inuu ag joogo markaan urugeysanahay ilmada iga biyo i qaabilo waan jeclaa inaan la aroos galo intoo taash lee xirxiro agtiisa aanoo fadhiya akhyaartuna booqato naloo aaminaan jeclaa inaan ubad yeesho oo awlaad dhalo waan jeclaa markaan aqalkayga galo inuu ilmahaygu farax intuu iga soo horbaxo si uu nageyl ku jiro intuu umma ii yidhaa inuu laabtayda galo adduunkaan ugu jeclaa ayaan bilan bay ahayd iftiiniiday ahayd markuu erayada qurxoon hankayga ku iibsado ileen dumar baan ahee markuu dhaari igu maray adduunka inaanu jirin cuduu igu doorsadaa aqbalay oo waan aqbalay ka shayduna aamin tidhi indhaha farax baa u baxay qalbigu ku ildoogsadoo jannaan iska soo dhex galay albaabadu ii furmeen igubay anigoo bad qaba idilay anigoo fayow akhyaartii iga dhex saar wakaa urugaday baday jacaylka waxaan u qabay wakaa ehelkayga iyo dadkii igu deeriyeen iftiinsa midkaan lahaa abaydin anoo ahaa awoodi anaa u galay anaa ajashayda jaray anaa isu loogay ruux haweenka baan aqoon waxay u astaysan yihiin waxaanse u sheegayaa haweenka intii fayow inay is ilaaliyaan intana makaa ku iman ee aan ibtiladu ku dhaco maasadaasaan nagu soo gabagabeynayaa waa tahay kuley waa sheeko dareen leh cabdirasaaqow anigana xoog ayay ii taabatay isla markaana dareenkaygu way bedeshay waxaan rajeynayaa daawadayaashana qaar kamida inaad ka ilmeysiisay aad baan uga xumahay inantaa waxaa ku dhacay isla markaana kuley waxaan rajeynayaa hablo badan inuu noqon doonto tusaale rag badanna ay u noqon doonto tusaale kuley gabdho weyna la dhashay aad baan kaaga mahadcelinaya qisada murugadeeda wadata eednala wadaagtay guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaan kusii siqaynaa kuley asxaab baad leedahay maxaa la dhaha family baad leedahay halkeed ka salaamsay cabdirasaaqo halkan waxaan ka salaamayaa cod kasta oo magacayga iyo muuqaygaba taqaana waxaan gaar u salaamayaa xamda oo barnaamijka igu soo casuuntay iguna soo marti qaaday waxaa kaloo aan salaamayaa iyagana b c 24 t v oon leeyahay salaamullaahi calaykum waa tahay anaguna aad baan kaaga mahad celinaa cabdirasaaq inaad barnaamijka hibada halabuurka aad qayb ka tahay sidoo kale muuqaalka quruxda badan leh waxaa caawa dhan heegan ugu jira inaan anaga iyo idinku is aragno oo muuqaalka quruxda badan leh aan idiin soo gudbino waa axmed titi axmed aadan madani iyo sidoo kale faahiye oo muuqaalada quruxda badan leh kala duwan caawa dhan heegan ugu jira inay daawadaan injineerka barnaamijku waa sitee oon leeyahay gacanta kuma godo anaga iyo cabdirasaaq waxaan idigaga teginaa kulan dambe oo xiise leh